السلام عليكم. casharkan waxaan ku baranaynaa haddii la yiraahdo wax la yiraahdo leadership and change management. Chapterkani wuxuu ka dambeeyey chapterka hore oo culturalka ku saabsanaa. Markaan ka hadlayno organizational change, in organization isbedel in lagu sameeyaa waxay ku xiran tahay maxay in la bedelo leadershipka iyo managementiga. Leadership waa qofka hogaaminaya iyo maamulkii laga hoos shaqeynaya ama managementigii waaxaha kala duwan. Marka change leadership iyo change management ayaa waxay keenaysaa in organizationkii uu ka dhaco isbedel, organizational change. Markaan leenahay organization in wax laga bedelo oo shaqada qaabka u soconaysay iyo activity-yada kala duwanaa mar walba oo leadershipka la bedelo, leadershipkuna uu sii bedelo maamulkii ama managementkii ka hoos shaqeynayay, waxay keenaysaa ama waxay lead garaynaysaa in organizationkaas uu isbedel uu ku dhaco. Marka intaasaan focuska ku saaraynaa casharkan hadduu la yiraahdo. Marka waxaan rabnaa inaan fahanno muxuu yahay horta leadership. Leadershipku muxuu u kala baxaa? Labadaasaan rabnaa marka koowaad inaan fahanno. Markaan leenahay leadership is about guiding and inspiring others. Waa maxay inaad hagto iyo inaad dhiirigeliso dadka kale oo kula shaqeynaya ama tiimka kale oo kula shaqeynaya ayaa la yiraahdaa leadership. Leadership set direction and motivate teams. Leaders set direction and motivate teams. Hogaamiyuhu waxa uu sameeyaa jiho sidoo kalena wuxuu ku jiheeyaa tiimka dhiirigelin inuu tiimkiisa dhiirigeliyo ayaa la yiraahdaa leadership ama qofka leaderka ah. Marka types of leadership waxaan u kala qaadaynaa midka koowaad oo ah autocratic iyo midka labaad oo ah democratic. Labadaas aan kala qaadaynaa democratic iyo autocratic. Sawirkan uu muujinayaa farqiga u dhexeeya democratic iyo autocratic. Marka autocratic waa maxay? Waa leader makes decision alone. Waa keligii taliya weeye. Waa qof hoggaanka haya cidna aan la shargaraynayn isla markaasna wax walba iyo go'aan walba isaga ay ku kooban tahay. Democraticna waa maxay? Involves team input in a decision making. Go'aan walbo la gaarayo waxaa ka guul gaaraya ama go'aanka ugu dambeeya qaadanaya team la shaqeynaya. Marka wax uu shakhsi go'aan ka gaaraya maahan. Marka waa democratic. Inta badan dowladaha waxaan ka maqalnaa dimuqraadiyadda waxyaabahaas. Marka democracy waa maxay? Waa qofkan hogaamiyaha noqonaya in loo vote gareeyo codna uu ku yimaado. Marka rule of the people ayaa la yiraahdaa democracy. Autocracy-na waxaa la yiraahdaa rule by dictator. Marka autocracy waa nidaamkii iyo democracy qofkii hoggaanka ah oo marka autocracy ka shaqeynaya wuxuu noqonayaa autocratic leader. Qofkii democracy ku shaqeynayana wuxuu noqonayaa democratic leader. Marka farqigaas u dhexeeya kind of leadership markaan ka hadlayno. Marka maxay tahay importance-ga ama muhiimadda uu leeyahay isbedelka hogaamiyeed? Markaan ka hadlayno isbedelka hogaamiyeed wuxuu keenayaa in isbedel cusub iyo shaqooyin cusub in la sameeyo. Wuxuu ku dhiirigelinayaa kuna jiheynayaa shaqaalaha inay sameeyaan wax badan inay qabtaan. Marka muhiimaddaasay leedahay in hogaamiyaasha loo bedelo ama hogaamiyaha markii la bedelo wuxuu la imaanayaa isbedel cusub, nidaam cusub. Wuxuu shaqaalaha u dhiirigelinayaa hala yaabaa qof markaas active ahaa oo aan managementiga ku jirin inuu kor usoo qaado oo kor maaragtay u keeno qofkaas wax badan sii qabto. Marka isbedelku faa'iidadaas
leeyahay marka sifooyinka uu leeyahay hogaamiyaha effectiveka ah maxaa ka mid ah number 1 waxaa ka mid ah visionary wuxuu haystaa clear picture wuxuu ka haystaa mustaqbalka waxa uu qabanayo iyo meesha loo socdo marka waa qof visionary ah sidoo kaleeto waa maxay waa qof communicative ah waa qof awoodi kara inuu message-ka rabo iyo fariintuu rabo inuu si fudud u gudbiyo convey ideas effectively yani ideyada uu doonayo in la sameeyo ayuu si clear ah u sharaxi karaa u dhihi karaa waxaas iyo waxaas iyo waxaas marka effective leaderska marka waxyaabaha ay ku sifaysan yihiin ayay ka mid tahay visionary iyo communicative marka leading change initiatives marka waxyaabaha aan la doonayo in wax laga bedelo marka aynu isla fiirino leading change successfully understanding the need of change communicate the vision for change marka si isbedel hogaamiyeed loo sameeyo marka kooda waxaan u baahanaa inaan fahanno maxaa u baahan isbedel maxaa u baahan in aragti fog laga yeesho marka waa waxyaabaha u baahanaa inaan sameyno markaan rabno inaan isbedel sameynayno sidoo kale waxaa jira caqabado ama challenges markii isbedel la sameynayo caqabadaas marka waxay ka imaan kartaa shaqaalaha waxay ka imaan kartaa maamulku inuusan fadhiyin marka resistance from employees managing uncertainty waxyaabahaasoo dhanna in markaad isbedel uu hogaamiyu sameynayo ayuu la kulmaya waa challengeska uu la kulmayo marka building change capable organization marka sidee loo sameyn karaa isbedel macquul ah oo organizationkaas ama organizationka u lead garaynaya ama u horseedaya in uu isbedel fiican uu ka dhaco marka koowaad waa maxay waa creating change capable teams in la abuuro team isbedel la imaan kara isla markaasna culture of foster of a culture of innovation yani la imaan kara in waxyaabo maaragtay aragtiyo cusub iyo innovationist la yimaada encourage continuous learning ku dhiirigeliya timamka inay aqoontooda kor usoo qaadaan ama wax cusub ay bartaan waayo isbedel markaa rabta inaad meel gaarto meeshaas waxay u baahan tahay aqoon iyo cilmi u baahanta marka in shaqaalaha oo kaleeto lagu dhiirigeliya in aqoon noocaas ay yeeshaan adapting to change flexibility is key embrace new ideas and approaches marka aan rabno inaan hirgelino isbedel waxaan u baahannahay in flexibility la sameeyo dhexdaadis iyo maaragtay aan la sameyn tartiib wax walba loo qabto sidoo kaleeto fikrado cusub iyo nidaamyo cusubna lala yimaado marka waxyaabahaas baa waxay inoo keeni karaan in isbedel aan la awoodi karo in organizationka laga sameeyo iyadoo aan jacburis iyo xoog midna uu siin jirin marka waxaan isla fiirinaynaa waxa la yiraahdo Couturier 8-step change model modelkan wuxuu ka kooban yahay 8 step ama 8 qaab oo isbedel lagu sameyn karo waxa la yiraahdo Couturier 8-step marka maxaa ka mid ah number 1 waxaa ka mid ah create form enlist enable generate sustain iyo institute so marka maxay kala yihiin markaa rabto inaad isbedel samayso number 1 waa inaad abuurtaa feeling of urgency of hardness towards change yani muhiimadda ay leedahay dareenka uu leeyahay yani in isbedel la sameeyo waa inaad muujisaa sidoo kaleeto waa inaad stepka labaad waa maxay bull formulate a guiding coalition in aad samayso guiding yani jiho keenaysa in maaragtay isbedelka la sameeyo stepka saddexaad muxuu noqonayaa form oo ah develop a strategy to bring about change
inaad samayso istiraatiijiyad ama nidaam keenaysa in isbeddel la sameeyo. Marka waa stepka saddexaad. Stepka afraad marka wuxuu noqonayaa enlist oo ah communicate or put forth the vision and or strategy for change. Inaad samayso inaad la hadasho inaad tusto waxa weeye nidaamyada aad rabto inaad wax isbeddel u samaysid waxyaabahaas oo dhan inaad aad maaragtay list garayso ama aad qortid oo kaleeto. Stepka shanaad marka wuxuu noqonayaa enable oo ah in aad u ogolaato shaqaalaha inay qaadaan ficilo ay isbeddel ku samaynayaan. Stepka lixaad marka waa maxay generate oo ah in la formulate gareeyo ama la nidaamiyo isla markaasna la soo saaro short term goals ujeedooyin kooban oo waqtiyo cayiman ama short term. Stepka toddobaad marka wuxuu noqonayaa oo isbeddel lagu samayn karo sustain oo ah capitalize of wins or gains in order to produce bigger results. Waxaa loo baahan yahay waa maxay in si isbeddel weyn loo gaaro in intii hore maaragtay la joogteeyo iyo guulihii hore si loo gaaro guulo waaweyn ama big results. Stepka sideedaad oo ah institute wuxuu noqonayaa waa maxay incorporate new and better changes in workplace culture. In aad ka shaqaysid isbeddel xoog leh meelaha shaqada ay ka soconaysa ama workplaceska xarumaha ay shaqadu ka soconayso culturekooda qaabka shaqada u socoto. Tusaale ahaan haddii shaqaaluhu ay duhurkii rawaxi jireen in duhurkii la joojiyo inay rawaxaan oo shaqeeyaan oo kaleeto. Marka workplace cultureku wuxuu noqonayaa habka shaqaaluhu uga shaqeeyaan xarunta iyo cultureka iyo nidaamka. Tusaale ahaan haddii organizationka dhexdiisa uu shaqaaluhuusan lahayn dhar formal ah oo lagu garan karo inuu shaqaaluhu yahay shaqaale organizationka u shaqeynaya waxaa samayn kartaa in dhar isku mid ah ay qaataan oo kaleeto. Marka nidaamkaas oo kaleeto ayaa la yidhahdaa workplace culture. Marka sideedda qaybood ama 8 models waa sideedda qaab oo aad isbeddel u samayn karto inaad marka hore abuurtid samaysid nidaamisid liisgarayso isla markaasna aad u ogolaato in isbeddelkii la diyaariyo kadibna la joogteeyo kadibna isbeddel lasii sameeyo institute better changes in workplace culture. Marka sideeddaas qaab waa muhiim oo waxaa la yidhahdaa Cotrice 8-step model baa la yidhahdaa. Marka maxaa halkaa ka fahmi karnaa ama key takeaways leadership change. Leadership is a crucial in driving change. Waa maxay isbeddelka hogaamiyeed waxay muhiim u tahay isbeddelka saxda ah ama in isbeddel dhab ah la gaaro. Modeliska sida Cotrice model will provide a frameworks for successful change management. Markaa rabta inaad isbeddel samaysid waa inaad isticmaashaa modeliska kala duwan. Waxaa jira modelo aad u kala duwan laakiin kan tusaale ahaan aan hadda soo qaadanay Cotrice model oo kaleeto frameworkaas oo kale inaad ku shaqayso markaa rabta isbeddel inaad samayso. Marka waa aad iyo aad muhiim u tahay. Marka overcoming resistance requires effective communication and involvement of employees. Markii ay iska caabin dhanka shaqaalaha ay kaaga timaado maxaa looga baahan yahay wax lagaaga baahan yahay effective communication in aad si dhab ah oo maaragtay effective ah saameyn leh inaad shaqaalaha ula hadashid u dhexgashid. Taas marka waxay keenaysaa in isbeddelka aad doonaysa inaad samayso waayo isbeddel markaad samaynayso shaqaalaha happy ku wada noqon mayaan. Waxaa laga yaabaa shaqaalaha qaybtood inaad resistance iyo waxyaabo noocaas ah iska caabin aad kala kulanto. Marka waxaa loo baahan yahay waa maxay effective communication and involvement. Marka qaybtan marka waa maxay waa discussion. Waxaan rabnaa insha Allah in laga doodo oo maaragtay aad wax kasoo diyaarisaan. Next class insha Allah ayaan rajaynayaa in aan discussion ka sameyno. Marka su'aaluhu maxay noqonayaan what are some examples of effective leadership you have witnessed during time of change.
How can an organization encourage a culture of innovation and adaptability? Have you ever experienced resistance to change in your workplace or personal life? How was it addressed? Marka su'aalahan oo dhan waxay noqonayaan discussion. Marka I hope in the next class discussion ka sameyna insha Allah. Assalamu alaikum.